Warbaahinta bulshada waa aaladaha isgaarsiinta sida Facebook, Instagram, TikTok iyo Twitter oo u suurageliya dadka in ay wadaagaan fikrado, muuqaallo iyo macluumaad. Waxay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha casriga ah. Saamaynta wanaagsan ee warbaahinta bulshada waxay u fududeysaa dadka in ay xiriir joogto ah la yeeshaan qoysaskooda iyo saaxiibadooda iyagoo kala jooga meel kasta oo caalamka ka mid ah. Waxay bixisaa warar degdeg ah iyo xog faa'iido leh oo ku saabsan dhacdooyinka caalamka iyo mowduucyada kale. Waxay dhiirigelisaa dadka in ay abuuraan waxyaabo cusub iyo qoraallo, sawirro iyo muuqaallo hal-abuur leh. Ganacsiyada yaryar waxay u adeegsan karaan in ay gaaraan macaamiil cusub, korna u qaadaan ganacsigooda. Dhibaatada laga dhaxli karo warbaahinta bulshada: dadka ayaa badanaa isku barbardhiga kuwa kale, taasoo keenta kalsooni darro iyo niyad jab. Isticmaalka badan wuxuu kordhiyaa walwalka, walbahaarka, gaar ahaan marka uu qofka daneynayo ra'yiga dadka kale. Dad badan ayaa la kulma dhaleecayn ama xadgudub, taasoo caafimaadka nafsadeed si taban u saameysa. Isticmaalka badan wuxuu keeni karaa luminta waqti iyo dareen caajisnimo. Sida loo yareeyo saameynta taban: u qoondee waqti cayiman oo aad warbaahinta bulshada ku isticmaasho, oo ku dadaal in aad xad u sameyso. Ka leexo dadka qoraaladooda ku keeni kara walwal ama xumaan. Raadi kuwa ku dhiirigeliya oo bulshada wax wanaagsan la wadaaga, halkii aad isku barbardhigi lahayd dadka kale. Xoogga saar yoolkaaga iyo horumarkaaga shaqsiyadeed. Qaado waqti aad ka nasato warbaahinta bulshada si aad maskaxdaada u dejiso. Isticmaal waqtiyadaas in aad wax akhriso ama xiriir toos ah la sameyso asxaabtaada. U adeegso in aad barato xirfad cusub, kobciso ganacsigaaga, ama ka qayb qaadato doodaha faa'iidada leh. Ugu dambeyn, warbaahinta bulshada waxay leedahay saameyn labada dhinac ah oo faa'iido leh iyo khasaaro. Si qofku uga faa'iideysto, waa in uu si miyir leh u isticmaalo, isagoo xoogga saaraya dhinacyada wanaagsan oo iska ilaaliya kuwa aan faa'iidada lahayn. Warbaahinta waa qalab adeegaya oo aan ahayn mid qofka maamula. Haddii aad xakameyso isticmaalka oo aad si faa'iido leh u isticmaasho, waxaad heli kartaa nolol caafimaad leh oo deggan.